السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan guda gali doonaa qaybta practical ka koorsada aynu ku guda jirno afnaan course 6-Aad cookbook basic qaybtii bilowga hore haddaan guda galno 10keena maanta cookbook enterprise solution waxa uu ku saabsanaan doonaa qaabka markaasi loo soo sameeyo waxa loo yaqaano akoonka markaasi xisaabinta ganacsigu ay ku wareegto haddaba 10keena wuxuu ka bilaabmayaa charts of accounts haddaba charts of accounts 10keena wuxuu ka bilaabmayaa charts of accounts haddaba chart of accounts teena guda galin waxaynu soo tagi doonaa cookbook dabeetana waxaan doonaa chart of accounts halka laga helaa lists ayaa laga helaa data chart of accounts ayaa lagu dhuftaa haddaba chart of accounts waynu fahanaa waa list ka dhammaan xisaabaadka ama accounts yada oo ganacsigu isticmaalo si uu u diiwaan geliyo dhammaan dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee ku jira cookbookska waxa uu u shaqeeyaa sida laf dhabarta maadaama lacag kasta oo soo gasha ama ka baxda lagu diiwaan geliyo mid kamid ah xisaabaadkan tusaalooyin xisaabaadka ku jira chart of accounts waxa ku jira qaybta cash ee loo yaqaan lacagta cadaanka ah qaybta bangiyada oo bangi hoostigaysa inventory alaabooyinka kaydka sales income ee dakhliga ganacsiga sidoo kale waxa ku jira waxa loo yaqaan expenses qaybta qarashaadka accounts receivable qaybta deymaha ka maqanaya account bible deymaha kugu maqan adiga ganacsatada alaabta ka soo deysata ay kugu leedahay sharaxaad kooban chart of accounts waa asaaska cookbooks waa halka laga maamulo dhammaan xisaabaadka ganacsiga taasoo ku sahlaysa inaad si sax ah ula socoto dakhliga kharashaadka hantida deymaha iyo sidoo kale faa'iidooyinka ganacsigaaga 10keenan waa 10 aan ku ogaanaynay faa'iidada chart of accounts leedahay chart of accounts waxa lagu waa laf dhabarta cookbook xisaabaadka halka lists markuu dhufano chart of accounts ayaa ku dhufan doontaa halkaas ayaa oran doontaa minimize ka maximize ka dhig oo ii ballaari dabeetana hadda daaqada saasay diyaar kugu tahay daaqadaas ayaa la chart of accounts waan guda gali doonaa shaqooyinkooda iyo waxay qabato oo sharaxaad kooban ka soo bixinay 10keena lixaad halkaas nugu joogaa afnaan course kulanta dambe